wararka ka imaanaya deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halkaasi lagu dilay askari booliis ah isla markaana ka howlgalaya deegaanka qayb sida ay tilmaamayaan xogaha ka imaanaya deegaankaasi askarigani ayaa waxa dilka u geystay xubno maleeshiyaad ah oo ku sugnaa deegaanka qayb kuwaasi oo kadib markii ay dilka geysteen goobta iskaga baxsaday sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dadka deegaanka xiriiro kala duwan oo aan la sameynay ayeen inoo sheegay mas'uuliyiinta in askarigani uu ahaa askari ka tirsan ciidamada booliiska ee ka howlgala gobolka Galgaduud isla markaana xubnaha maleeshiyaadka ay dileen kadibna goobta iskaga baxsadeen laamaha amniga maamulka Galmudug ayaana wali wax hadal ah ka soo saarin dilka loo geystay askarigani ka tirsan ciidanka booliiska waxaayna wararku ay sheegayaan in ilaa iyo hadda aan la garanaynin sababta ka dambeysa in raggani maleeshiyaadka ay dilaan askarta walow xogaha qaar ay sheegayaan in sababta loo dilay askariga ay tahay sabab la xiriirta aana qabiila walow aan la cadeyn karin arintaasi walina kama aysan hadlin maamulka Galmudug iyo sidoo kale guud ahaanba maamulka deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud waxaana la rumaysan yahay in arintani ay macquul tahay in salka ay ku heystaan qabiila iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanada maamulka Galmudug iyo sidoo kale qaybo kamid ah maamulka Puntland ay ka socdeen colaad beeleedyo kala duwan oo u dhaxeeya beelo walaalaha wada dega gobolada Mudug iyo Galgaduud isla markaana qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawacyo halis ay ka dhasheen